بسم الله الرحمن الرحيم waxaan la joogaa qoyskani waxay ka yimaadeen dhinaca ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo kamid ah deegaanada Soomaalidu degan tahay oo abaartu ay sida aadka ugu habsatay waxay u yimaadeen walaalahood waxay yimaadeen degmada Galdogob waxa la siiyay gurigan oo lacag la'aan lagu dajiyay waxa dajiyay dad ehelka ah xogaa yaro iska raashin ahna waa loo keenay laakiin dadka maantay wixii loo keeno hadii aan joogto looga dhigin oo aan si caadi ah loo taakuleen dadkaani maanta ma dad ay wax ka dambeeyaan hooyo magacaaga ii sheeg kor u hadal hooyo raali hooyo نورا أيوه نورا موسى حكيك تمادين واقرت انشراء كتمادين هيا حكي نلاشين نسدابي هاد مركز انشراء جوجتين نلاشين عرير بيا حولنا من قدام واقرت انشراء لوك ميغو كنا لما كسوق عنه واقرت انشراء ما waxa ka deganadeen baadiyaha mise baadiyaha nu ka deganayno xoolaha ku deganay xoolaha wayna dhaafeen xoolaha awal xoolo intee bay ahaayeen xoolo intee dhan camal wax un geel iyo ari sokontameeyaha noo joogay wayna dhaafay wax yar baan nafska si jiro geel sidoo kale ilmaha yarka sidoo yahay shalay iyo marna ku in xoga caana iyo waxbaasi ugu heeyso sibaad ma garanaysaa ilmaha ugu miyir qaba ha waxaan sanamiya waxaan sanamiya miyir qaba waa gartaa دكتوري وحمل لقيه ما يروح دكتور لما جه ان شاء الله وجين دون تنكودي هويو وحويان لعقتن وقت الدول بدك تقوم بسنة كودي سداسنا كاميرا دوتس سداوتس قبصة أديك أسكله أديك المهاجة بلوحي أيدين قبل كرتو يا إن شاء الله كوقبصة وحنا أيدين صدري ويل سوماليات وجوجا ودن كسويدن أو ولالكينا oo ka daqnaday dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta dhibaatada dadka haysata marka wiilkaas hadee isaga idin soo diray anigu wala ii soo wakiishay wala ii soo dhiibay waan idin soo gudbiyay adika iyo wiilka lacagtan soo dirsaday baan idin dhaxeeyay magaciisa walaalkaasi ma jecla inuu la shaaciyo marka wiilkaas waxa laga rabaa de waxaad ku oran lahayd inaad ku tiraahdo wiilkaas damigiisa Allah dhaafo waa gartaa inta tan wuxuu noo qoonmayso qadad dhan ay helahaan nahayo dhan hadda gumniyahana haye inta wuxuu noo qoonmayso haye isbitaal ma ku aadnaa cunna kala baxnaa ilmaha dharkooda ka bixinaa de waxa idin kugu daran ku qabsada insha Allah dad Soomaaliyeed oo kalena waa jiraan oo khayrka jecel iyagana bal wixii ay idin awoodaan insha Allah way idin la soo xiriiri doonaan waxa ugu daran oo aad isleedihiin kama maarantaan ku qabsada bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal waa barnaamijkii yaa u maqan oo wareegaya dhulka miyiga ah meel walba waan tagnaa saacad walba iyo goor walba waxa naga go'an inaan walaalaheen Soomaaliyeed ee dhibaatadu hayso aan caawino waxaan la joogaa hooyo Soomaaliyeed oo aan ugu imid hoygii ay ka deganayd dhulka miyiga ah meel baadiya ay degan tahay oo Galdogob duleedkeeda ah waana dadka abaartu ay ka muuqato hooyo magacaaga saddexan sheeg Faaduma Muuse waa maasan tahay Faaduma Muuse waxaad nooga warantaa xaaladda adiga iyo ilmahaaga qoyskaaga sida ay tahay ala xoolihii hortay waa naga dhamaadeen oo xoolo nooma joogaan ilmuhuna marna dadka waa shitaan marna waa ka seexdaan ay karsadaan ma jiraan waa ilmahaas meeshaas baadiyaha jooga abaartu hayso oo ariga ay ka dhamaadeen ilmana ma helaan marna waa karsadaan marna waa qadaan maalina waa helaan maalina ma helaan meeshaas iska joogaan oon baa ka jira biyo la'aan biyana ma haystaan arigina waa ka dhamaaday waxay biilo oo meel ka qaataan ma jiraan waa caruurta xunka iyo ciista meeshaas iska joogaan hoy la'aanta meeshuna guri saasana ma lahan meeshaas guddaas yartaaba iska hoos jooga iska hoydaan meeshaas iskaga xareysan yihiin hooyo lacagtani oo $50 waxa ku soo diray walaal Soomaaliyeed oo jooga wadanka Sweden walaalkaasi waa uu sadaqaystay lacagta aniga wuxuu ii soo wakiisha inaan dadka baahan ee lacagtan oo kale u baahan inaan ku wareejiyo marka ma sha Allah ilaahay baa mahada iska leh waafajiyay inaan hooyadan Soomaaliyeed guddoonsiyo xaqii la iigu soo dhiibay ee walaalka Soomaaliyeed iigu soo wakiishay inaan soo gaarsiiyo wiilkaas wuxuu joogaa wadanka Sweden marka maxaad ku leedahay waxaan ku leeyahay wiilkaas inuu si fiican
gacanta noogu qabto oo wixii noo heli kara noogu soo dhiibo wiilashaas oo maantana na soo gadoonsiiyey oo na soo gaarsiiyey ay noogu keenaan meesha iyadaas aan ku noolnahay waa wiilkaas ilaahay khayr Allah siiyo lacagtaas wiilku noogu soo dhiibayna waa noo keenay